Bismillahirrahmanirrahim. Nolosha maxaa kuugu muhiimsan? Waxaan ognahay qof kasta wuu mashquulsan yahay, qof kasta wuxuu rabaa inuu waxyaabo badan qabto, noloshiisa uu ka faa'iideysto, waqtigiisa uu ka faa'iideysto. Qof kasta wuxuu rabaa in uu wax soo saar fiican sameeyo, noloshiisana guul ka gaaro. Balse dhageyste daawade waxaan rabaa inaan kula wadaago 4 walxadood oo qof kasta markuu noloshiisa ku bees gareeyo, gaar ahaan qofka muslimka ah markuu 4 walxadood uu diiradda saaro noloshiisa uu ku bees gareeyo uu aad uga faa'iideysanayo. 4taas walxadood waxa ugu horeeya dhageyste marka hore waa islaamnimada. Qofka muslimka ah ra'sumaalkiisa ugu weyn ee uu haysto adduun iyo aakhira uu rajo ka leeyahay waxa waaye waa diintiisa. Mar haddii uu diintiisa dayaco oo maxaan ku yiraahdaa sidii la rabay waqtigiisii iyo maxaan ku yiraahdaa juhud u gelin waayo, rajadiisii tan adduunyo iyo tan aakhiraba aaday maxaan ku yiraahdaa dhaawac u gaarayo. Gaalada Ilaahay subhanahu wa ta'ala si kasta ay u shaqeeyaan wax badan u soo saaraan oo juhud u bixiyaan, Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku tilmaamay in amalkooda uu noqonayo mid aan natiijo lahayn. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Marka juhdi kasta ay bixiyaan, natiijo kasta ay nolosha ka gaaraan, wax faa'iido leh ama qiimo leh ma noqonayso. Maalinta aakhira waxay noqonayaan wax aan waxba ka jirin oo waxba lagama soo qaadayo. Qodobka xiga oo daawade oo aad ugu muhiimsan nolosheena in maxaan ku yiraahdaa goos dambeeska aan ku qabsano waxa kamid ah caafimaadkeena. Qof kasta maxaan ku yiraahdaa markuu rabo inuu wax soo saaro, noloshiisa wax ku soo kordhiyo, wax tar yeesho, wuxuu u baahan yahay inuu ahaado qof jismiyan iyo maxaan ku yiraahdaa dhihniyan buu caafimaad qabo. Maskax ahaan iyo jir ahaan qofku inuu caafimaad qabo. Caafimaad qabka waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu bixiyo. Haddana sidaas ay tahay, qof kasta wuxuu u baahan yahay, wuxuu sameyn karaa dadaalo iyo juhdi iyo ka hortag badan ayuu sameyn karayaa. Waxay yiraahdaan qolada caafimaadka ka hortaga ayaa ka wanaagsan caafimaadka. Waxyaabo badan oo kugu dhici karo hadday tahay maxaan ku yiraahdaa sokorta, hadday tahay dhiig karka, hadday tahay cudur kale, waxa ugu hortagi kartaa sameyn kartaa tallaabooyin haddaad sameyso waqtigoodii aad kaaga soo daahayo ama aan kugu dhicinin. Sida inaad sokorta iska yareyso, isticmaalka milix ama cusbada inaad iska yareyso. Qaabo badan ayaa jiro qofka caafimaadkiisa maxaan ku yiraahdaa u ilaalin karo inuu hurdo ku filan, waqti fiican inuu seexdo, in sidoo kale maxaan ku yiraahdaa caalamiinta iyo dhaqdhaqaaq iyo jirkiisa harakaad badan uu sameeyo. Waxyaabahaas kamid ah. Haddii aad rabto waxyaabo badan caafimaadkaaga ku ilaalin karto, waa inaad raadisaa waxyaabo badan oo caafimaadkaaga ku kordhin karto ama aad ka hortag badan ku sameyn karto. Qodobka xiga daawade aan rabo inaan kula wadaago wuxuu yahay ehelkaaga. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu inaga dhigay dad qaraabo ah, ehel ah. Qof kasta wuxuu leeyahay waalid buu leeyahay, asxaab buu leeyahay, qoys buu ka soo jeedaa. Markasta wax garabkaada taagnaan doono oo meesha ilaa dhibeed ugu dambeyso ilaa qabriga kula tagi doono, ku sagootin doono waa ehelkaaga. Waxaan ugu horeeyay waalidkaaga iyo maxaan ku yiraahdaa walaalahaaga. Ayagana waxay kaaga baahan yihiin in intaad karto aad maxaan ku yiraahdaa aad waqti siin karto, aad wax u tari karto, aad maxaan ku yiraahdaa dadku kuugu dhow aad ka dhigi karto. Iyadana aad bay u fiican tahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaan ku yiraahdaa marka la weydiiyay nabiyow yaa inooga xaq badan, xadiidkiis waxaa kamid ah waalidkaaga, gaar ahaan hooyadaada baa kugu xaq badan. Hooyadaada kugu xaq badan. Xadiid kale waxaa jiray laa yadkhulul jannata qaadi. Qofka qaraabo goyska ah janno ma galo. Maxaan ku yiraahdaa marka maadaama ay saas tahay ehelkaaga in badan oo anaga naga mid ah waan dayacnaa ehelkeeni, meel kuma sheegno, waqti in badan maxaan ku yiraahdaa ay u baahnaayeen ee juhdiga ay u baahnaayeen ma siino. Laakiin marka ugu dambeyso maxaan ku yiraahdaa aan u baahno dadka garabkeena istaagayo waa ehelkaaga. Marka waxay kaaga baahan yihiin inaad juhdi geliso, waqti badan aad siiso ehelkaaga. Qodobka ugu dambeeya daawada aan kula wadaagayo waxa waaye oo noloshaada aad ugu muhiim ah, muhiimadda koowaadna ay tahay inaad siiso waxa waaye dhaqaalahaaga ama xoolaha aad haysato, gaar ahaan inaad maxaan ku yiraahdaa ay ahaadaan kuwo xalaal ah. Qofka bani aadamka ah wuxuu u baahan yahay isku filnaan. Isku filnaan dhinacyo badan. Marka hore qofku uu dhasho waa qof la daryeelo, maxaan ku yiraahdaa la xanaaneeyo, dharka loo geliyo, maxaan ku yiraahdaa loo qabeeyo, la nadiifiyo, juhdi badan la soo geliyo. Ugu dambeystii markuu soo weynaado wuxuu noqonayaa qof isku filan oo maxaan ku yiraahdaa dhinacyo badan isku filan, jisadkiisina isku filan, haddii maxaan ku yiraahdaa xoolo iyo dhaqaale kale u baahan yahay isku filan. Marka daawade
يعني waxyaabaha ugu muhiimsan ee noloshaada inaad maskaxda ku hayso ay tahay inaad gaarto waa isku filnaan dhaqaale haddaadan haysan isku filnaan dhaqaale micnaheedi xurma tihid sidaa mar horena aan soo sheegay yani carabtu waxay yidhaahdaan man laa yamliku quutahu laa yamliku qaraarahu qofkaanan awoodin quudkiisa ama waxa uu isku bixiyo qaraarkiisa ma lahan xoolaha keli ah maxaan ku yidhahdaa farxadda ayaga ma keenaan laakiinse waxay ka qayb qaataan qofka farxadiisa ay ka qayb qaataan markaad haysato wax kugu filan aad maxaan ku yidhahdaa meesha rabto ku tagi karto aad uga maarmi karto dadka kale waxaa waaye qof laga diraa noqonaysaa bulshadiisna qiimo kuleha noqonaysaa marka afartaas qodob ee aan soo sheegnay inaan diinteena ilaalsano in ehelkeena aan ilaalsano in caafimaadkeena aan ilaalsano iyo inaan gaarno isku filnaan daawada halkaas ayaan kusoo koobaya maxaan ku yidhaahdaa kilibkayga ilaahay subxaanahu waxaan ka barinayaa in maxaan ku yidhahdaa diinta ilaahay diinta islaamka nagu dilo maxaan ku yidhahdaa nolol caafimaad leh iyo ehel barwaaqaysan iyo isku filnaan nolol isku filnaan leh oo qof kasta aan ugu maarmaynin ilaahay subxaanahu watacaala nagu irsaaqo kelimadeena ugu dambaysa maalinta aan dunidan ka tagaynin uu ka dhigo kalimatu laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah sala allahu calayhi wasalam